wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Naafic Show waa 19 Agoosto sanadka 2025 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doonana waxaa kamid ah warbixin ku saabsan isballaarinta Turkiga ee min Soomaaliya ilaa galbeedka qaaradda Afrika, militariga Shiinaha oo dowlatus sameeyay, Hindiya iyo Shiinaha oo xiriirkoodii diblomaasiyadeed dib u soo celi. qodobadaas ayaad qaybtan ku maqli doontaan mar kale kusoo dhawaada Naafic Show. Warbaahinta dowladda Carabta ayaa markaan si gaar ahaaneed waxa ay tooshka ugu ifinaysaa dhaqdhaqaaqa dowladda Turkiga qayb ka mid ah bariga dhexe ilaa qaaradda Afrika. Marka aad eegto dunida hadda waxa aad moodaa in la isku mashquulsan yahay dhanka ciidanka iyo sirdoonka ayaa aad loo howlgelinayaa. Shiinaha ayaa la sheegay inuu ku soo bandhigayo dowlatus military oo uu soo qaban qaabiyay 3 bishii Sebtembar 4 gantaal oo cusub kuwaas oo la sheegay inay awood u leeyihiin inay burburiyaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka. Mar horeba waxaa lagu tilmaamay in gantaaladan ay ka gudbi karaan nidaamyada difaaca. Hubkan cusub ayaa qayb ka ah istiraatiijiyadda Shiinaha ee loo yaqaano A2/AD Anti-Axis/Area Defense, taas oo lagu talagalay in lagu xakameeyo maraakiibta cadowga gaar ahaan badda koonfureed ee Shiinaha iyo hareeraha Taiwan, sida uu shaaca ka qaaday wargeyska South China Post. Shiinaha iyo Hindiya ayaa bilaabay inay dib u soo celiyaan xiriirkooda xilli la filayo inuu ra'iisul wasaaraha Hindiya booqasho rasmi ah ku tago Shiinaha. Caasimadda Hindiya ee New Delhi waxaa ka dhacaya kulamo laba geesood ah oo u dhexeeya wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal, iyadoo kulamadan lagu gaaray heshiisyo muhiim ah oo ay ka dhalatay in uu Shiinaha si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu xayiraadii ka qaaday qalabka birta culus ee Hindiya uu u dhoofin jiray, macdanta dhifka ah iyo maadooyinka loo yaqaano bacriminta beeraha. Tona waxa ay muddo dheer codsanaysay Hindiya.